Fanaanka caanka ah ee Chris Brown ayaa waxa uu sameeyay dhacdo dadka oo dhan ka yaabisay muddo dhowr maalmood ka hor ah, taas oo ah inuu kala furay nin iyo xaaskiisa oo isqaba, labadooduna ay isku dagaaleen isaga dartiisa. Ku soo dhawow muuqaalkeena maantay, haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir, haddii aad horey noola joogtayna noo sheer garay, mahadsanid. Fanaanka caanka ah ee reer Amerika ee Chris Brown waxa uu sameeyay dhacdo la yaab leh, waxa uu dumiyay reer dhan, waxa uuna kala diray nin iyo naagtiisa oo isqaba. Fanaanka caanka ah ee Chris Brown ayaa 7 maalmood ka hor waxa uu show ku dhigtay Amerika, showgaas oo ahaa mid qaali ah, lacago badanna lagu soo gelayay, balse showgii markii uu soo dhammaaday waxaa isfuray qoys dhan oo ahaa nin madow ah iyo naagtiisa. Dhacdadanna waxaa keenay ama sababay waxay u dhacday naagta madowga ah oo ninkan uu qabo ayaa waxa ay maqashay in fanaanka Chris Brown uu qabanayo show qaali ah, uuna u baahan yahay gabar single ah ama aan lahayn wax boyfriend ah ama wax girlfriend aan lahayn ama aan wax reeraba haba yaraatee lahayn ama saaxiib, taas oo u kala kicisa showgiisa. Waxaana filayaa inaad dhammaantiin aragteen showyada ay qabsadaan fanaaniinta waaweyn oo gaalada ahi, inay kasoo muuqdaan dumar badan oo niikinaya ama geesihiisa taagtaagan, kuwaas oo u daansi garaynaya fanaanka ama kala qayb qaadanaya masraxiyadda fanaanka, si indhaha dadka daawanaya showga uu usoo jiito ay dumar badan geesihiisa ka niikiyaan. Balse gabadhan waxa ay maqashay ama newska kusii aragtay intii ay akhrinaysay in fanaanku uu bixinayo lacag ka badan 20,000 oo dollarka Maraykanka ah, uuna siinayo gabadhii kala soo qayb gasha showgaas oo si fiican oo masraxiyad lehna usoo bandhigta waxa uu u baahan yahay. Balse gabadhan ayadoo sheeginin waxa ay inay xaas leedahay ama nin uu qabo, ayaa waxa ay dooratay lacagtaas inay qaadato, aysan cidna u sheeginin inay nin leedahay in kale aan la ogaaninin, ayna kasoo qayb gashay showgaas si ay lacagtaas u qaadato. Balse fanaanku inta uusan bilaabin showgiisa ayuu mar kale ku celiyay sharciyada laga rabo gabadha stage-ka la soo koraysa. Waa inay ahaataa gabadhaasi mid aan la qabin wax boyfriend ama girlfriend waxa gaaladu u yaqaanaan aysan lahayn, ama wax saaxiib ah, maadaama uu ka cararayay in hadhowtadii dhib uga yimaado ama xaas uu kala diro ama family dhan oo isqaba uu qoyskooda dudumiyo. Shit, it's time to get freaky in this motherfucker. I need a girl to come on stage. Us. We need 2, right? Just 2 tonight, right? Just 2, just 2. All right, so look, you got one over there. Yeah, I'm looking. And you look over there. Big. My sexy ladies make some noise tonight. Hey, if you got a nigga, do not get up on this motherfucking stage either. If your husband or your man brought you to this show, this not for you, goddamn. Oh, Breezy, that make it a little bit more interesting. I'm gonna have to fight a nigga after the show. All my single ladies make some noise. I don't want no more jail time. No more jail time. Hey, well, hold on. I got a different dynamic, you know. You gotta have something to lose because I'm married too, baby. All my married women make some noise tonight. You are good. Come on. You see, I found mine. You got one? For sure. Is it true? Is it true? Is it true? It's your birthday. All my sexy ladies on the right side. Balse ninkii naagtan qabay ayaa isla habeenkii waxa uu TV-ga ka arkay xaaskiisii oo la isticmaalayo oo show dhex joogta, taas oo u daansi garaynaysa fanaanka, wax walba oo xumaanana samaynaysa ama si walba oo xun oo qof dumara samayn lahayd ama loo isticmaali lahaa iyadoo loo isticmaalayo indhaha dadkooda hortooda ama caalamka oo dhanna uu arkayo. Balse ninkii nin raga ayuu ahaa oo go'aan leh, oo go'aan ayuuba gaarayba, oo isla markii intuu xanaaqay ayuu wuxuu iska soo duubay muuqaal isagoo gabadhii xaaskiisa ay ahayd dharkeedii iyo wax walba oo guriga u yaalay bannaanka isaga soo tuuray, una sheegay in ay ka furan tahay xaaskiisa dambena aysan ahayn, meel dambe uu ku nool yahay ama meel walba uu joogana aysan iman karinin, wax dambe oo ka dhaxeeyana aan la arkin. This bitch got me fucked up. She thinks she could get on stage with Chris Brown. Take you down, huh? Take you down here. Here's the rest of your shit. Got me fucked up. You think it's sweet? You think you get on stage with Chris Brown? Well, come get your shit. Come get all your shit. Talking about take me down. Yeah,
Take you down. How about now he take you down? Do all your shit out, ho. You got me fucked up. Think you could get on stage with Chris Brown? Take you down, huh? I'll take you down, all right.